Manchester United ayaa Europa League ka reebtay Barcelona 2-1 ayay kusoo dhamaatay ciyaarta Old Trafford ka dhacday xalay. Ciyaar aan caadi ahayn. United way soo laabatay ayaa la dhihi karaa runtii. United la yaqaanay ee horyaalada qaaradda Yurub iyo Premier League xooga ku haysan jirtay. Macallin Erik ten Hag waxa uu muujinayaa inuu yahay macalinka saxda ah ee United ku soo celi lahaa United lagu yaqaanay. Kusoo dhawaada falcelinta kulankii xiyad ku xisaab badnaa ee xalay ee lagu ciyaaray gegida Old Trafford ee u dhexeeya kooxda Manchester United iyo Barcelona. United ayaa 2-1 ku badisay ciyaarta. Macallin Erik ten Hag xalay wuxuu sameeyay bandhig aan caadi ahayn ee xagga tactiga ah. United waxay soo bandhigtay inay soo laabatay ay diyaarna u tahay inay mar kale magaceedii iyo sharafteedii meesha lagu yaqaan ay ku soo laabato. Ciyaaran inaba caadi ahayn ay ciyaartu ahayd. United goal ayaa laga hormaray ciyaarta half time-kii hore. Penalty aan inaba la filayn oo u muuqatay in maaragtay ay ahayd mid aad u jilicsan ayaa kooxda Barcelona ay heshay. taasoo runtii United niijo badan ku ahayd half time-kii hore. Marka penalty-gaas laga soo tago ciyaartu si fiican ay u socotay. Waxay u muuqatay game-kan inuu noqon doono kulan gool badan la iska dhaliyo. United fursado fiican ayay heshay half time-kii hore inta goolkaas laga dhalin ka hor. Laakiin markii goolka la dhaliyay ka bacdi oo Lewandowski uu dhaliyay digayo goolkaas inuu safe ayuu aad ugu dhawaay. United waxay u muuqatay in kubadda laga haysto inta badan Barcelona ay Tembago maamuleysay oo iyadu ahayd kooxda kubadda haysatay. Laakiin half time-kii dambe maxaa dhacay? Macallin Erik ten Hag badal ayuu sameeyay. Shaxda oo half time-ka kusoo galay shaxogaa qaldan ayuu ekeed sida aad maaragtay oo kusoo bilaaban haddii la fiirsho. Sancho oo number 10 kusoo bilaabay. Weghorst ayuu maaragtay number 9 dhelsiiyay oo kulamadii u dambeeyay number 10 dheelay. Bruno ayuu garabka saaray. Shaxdaas oo shaxdii oo half time-kii dambe ee Leicester u dheelay oo ku faa'iido goolash badan ee kooxda ku dhalisay. Laakiin kulankan uma muuqan inay shaqeynayso. Barcelona difaaceed aad u fiicnaa. Unitedna kubadda inay gadaal ka soo dhisto ay aad dib ugu qabtay iyadoo ognahay in David De Gea oo kubadda gadaal laga soo dhisa oo ku fiicnayn. Intaas marka laga soo tago United half time-kii dambe markay soo laabatay sheekada macallin ten Hag ku saabsan ayaa waxay tahay in oo awood u leeyahay inuu ciyaarana half time-kii hore ciyaar xun dheelay oo half time-ka dambe ka dhigo man of the match. Bandhigan caadi ahayn ay Bruno iyo soo bandhigan half time-kii dambe. Half time-kii horena aad ay u liiteen. Gaar ahaan Bruno kale marka laga hadlo sidaas la mid ah Fred asaguna ciyaar aan aad u liidata ayuu half time-kii hore soo bandhigay. Laakiin half time-kii dambe man of the match ayuu ku guuleystay. Xalay ciyaar aan caadi ahayn ayaan daawanay. Manchester United runtii sanadkan waxay u muuqataa inay tahay koox diyaar u ah inay koob ama laba ku guuleysto. United waa hadda kooxda kaliya ee 4 koob ee Yurub laga dheelo. Kooxda kaliya ee Yurub ka ciyaartay ku jirta waa Champions League ku jiraan, waxaan dhahay Europa League ku jiraan, FA Cup ku jiraan, finalka koobka Carabao Cup ay maalinta Axadda dheeli doonaan. Premier League-na kaalin saddexaad ay ku jiraan ayagoo dhibco yar City ka dambeeya. Marka macallin Erik ten Hag United sanadkan waxay soo bandhigeen wax caadi ah. Ten Hag bedelkii oo half time-kii dambe sameeyay isagoo Weghorst bixiyay. Anthony soo gashtay goolka guusha dhaliyay. Anthony oo asaga dhaawac ku maqnaa kulamadan oo dib u soo laabtay inkastoo san maaragtay aad loo eedeynayay oo maaragtay u muuqato in miidiyaha Ingiriiska aad ugu dhagan yahay ciyaarada hore Manchester United. haddana ninkan waxa waay balance ayuu kooxda u keenayaa oo waa ciyaaryahanka kaliya ee weerarka dheela ee bidixda ay haystaan. Marka goolkii oo caawa dhaliyay waxaa la hubaa haddii ay fursadaas heli lahaayeen Sancho ama Rashford oo kale meesha ku heli lahaayeen inaysan lugta bidix saas ugu shoodi lahayn ay isku dayi lahayn in lugta mid kubadda u dhiibto macnaha ay ku helaan taasoo fursada khasaar leh. Marka Anthony inkastoo san maaragtay lacagta laga soo baxsho u qalmin oo United lagu dhacay haddana taas isaga qaladkiisa maahan. United maaragtay gurgurtanka xumadeeda iyo ku timid in isaga lagu eedeeyna maaha. 80 milyan qalma waa maya laakiin waa ciyaaryahan tayo leh oo heerka maaragtay u gaari karo ilaa hadda aan gaarsiisnayn laakiin mustaqbal fiican leh hadii oo macallin fiican helo. Macallin Erik ten Hag waa ku kalsoon yahay kooxdana balance fiican ayuu u keenayaa. intaas marka laga soo tago Varane iyo ciyaarnada kale ee maaragtay maxalli Lisandro Martinez kamid yahay. Casemiro ciyaaran inaba caadi ahayn ayagana soo bandhigeen. Old Trafford xalay wax kale ayuu ahay. taageerayaashu saameyn weyn ayay ku lahaayeen ciyaarta. Barcelona runtii jihada ayaa ka luntay markii half time-ka laga soo laabtay oo United goolka koowaad heshay iska cadeed in United ciyaartan badinayso oo goolka labaad iyo goolka saddexaad ay dhalinayso. laakiin goolka saddexaad ma imaan. United xalay wixii ay soo bandhigtay wax kale ay ahaayeen. kulankii horena sidaas la mid ah comeback ayay sameeyeen. kulankaana comeback ayay sameeyeen. Barcelona oo ah kooxda maaragtay kooxaha kamid ah kooxaha Yurub ugu xoog badan horyaalka liigaha xoog ku haysata ayaa comeback laba kulan lagu sameeyay lagana reebay maxalli yiraahdaa Europa League. United sanadkan meel u socotaa waa kooxda kaliya 4 hori maxalli yiraahdaa koob ciyaaraysa ilaa hadda waa kooxda ugu guulaha badan marka la isku daro Yurub iyo maxalli yiraahdaa kulamada Yurub iyo kulamada maaragtay iyo horyaalka. marka meeshay u socoto United sanadkan waxa arki doonaa kulankeedu maxalli dhahayaa waxay u haysataa fursad ay Axadda ay ku guuleysato koobkeedii ugu horeeyay Carabao Cup iyo finalka dheelaysa.
waxaan la dheeraysaa kooxda Newcastle. kulankaas waa kulan asaguna maaragtay United u badan tahay inay badi doonto iyadoo maaragtay sidaas ku heli doonto koobkeedii ugu horreeyay xilli ciyaareedka. macallin Erik ten Hagna wuxuu ogyahay inuu yahay macallinkii soo celi lahaa United. runtii marka la fiirsho waxa uu soo bandhigay sida kooxiisu u bedelayo iyo sida maaragtay half-time-yada uu uga faa'iideysanayo bedelada uu keenay iyo goolasha ay dhalinayaan. sanadkan United waa kooxda goolasha ugu badan ka heshay ciyaarada bedelka ah hadda Premier League marka la yiraahdo. Europa League-na sidaas lamid ayuu sameynaya. sheekada kale oo cajiibka Ten Hag ku saabsan ayaa waxay tahay in uusan ku dhagsanayn wixii uu sameeyay oo haddii qalad uu sameeyay caawa inuu xalay inuu kusoo bilaabo Vegas oo shaxaas uu dheelo qalad ayay ahayd, laakiin half-time-kii dambe uu arkay bedel ayuu sameeyay, bedelkiina waa ku faa'iiday. sidaasna kulamo badan uu sameeyay, kulankii Arsenal oo ku martay kamid tahay, kulankii Manchester City kamid tahay. marka ninkan waa macallin maaragtay aad loo ammaanay awoodiisa iyo tacticadiisa, man managementigiisa iyo tactical gamekiisa caadi maahan. waa nin aan inaba caadi ahayn. Unitedna runtii waxaa dhihi karaa macallinkii United heerkeeda kusoo celi lahaa ayay heshay. sidaas ay United ay u gudbaysaa heerka ama wareega xiga ee Europa League. kooxo kale waaweyn ayaa weli Europa League ku jira, laakiin United haddii Barcelona ay ka badisay runtii waxaa dhihi karaa fursad weyn ay u haysataa ay ku guuleysan karto Europa League sanadkan, inkastoo kooxaha weyn Juventus, Roma iyo Arsenal ay ku jiraan. isku aadka isla maanta ayaa la sameyn doonaa oo Jimco ah. waxa isku soo aadana waa arki doonaa United kooxda ay ku soo aadi doonto iyo kooxaha ay ku aadi karto weli maxaa la yiraahdaa ma aqaano, laakiin wixii kasoo kordhan waa la socodsiin doonaa. fadlan haddaan ugu cusub tahay channelka subscribe ka saar. muuqaalkeena intaas ay kusoo koobaya. waa ku mahadsantahay daawashadaada.